guri barakaysan Allah ka dhigo guri barakaysan Allah ka dhigo guur barakaysan Allah ka dhigo wiil iyo gabadh wanaagsan Allah ka dhigo ilaahay maaragtay usra reerka iyo khayrka ku soo biirtay oo ummal islaamiya khayr u noqoto Allah uga dhigo innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi ubad khayr qaba Allah siiyo ubar khayr qaba Allah siiyo اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وحوا إنكي قف نول صودون تدمع بدنا ننكي بحيد يغسسنا عليه أنا وادين سيني قبلي وناجين إذن كان الذين كربا halkan aan maanta ku sugannahay waa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaanu ka soo qayb galay aniga iyo marti sharaf tiro badan oo halkan isugu yimaaday oo kamid ah haldoorka culimada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ankara meherka mudane Khalid Abdiqaadir Sheekh Ali Suufi iyo Muno Maxamed Amiin Faarax oo maanta uu halkan meherkooda ka qabsoomay halkan waxa ka hadlay oo maartay isku meheriyay isla markaana dhalinyarada iyo dadka guud ahaanba dardaaran u jeediyay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi sidoo kale waxa iyaguna hambalyo u diray qaar kamid ah saaxiibada gaarka ah waxay munaasabadii u dhacday sida tan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال ربنا جل جلاله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون إلهي جل جلاله آياتهم حنوك عدين يا إن قوركو ويهي نعمة من نعم الله قلدها إلهي كمذا كو قلديستي إنسانك بشرك بني آدمك سيء نسليسو يفرعيسو وأجوغو وأفربتو هدان إلهي سبحانه وتعالى رغبة إيو باهي ويلي لهين لبضا لنعبا الذكر والأنثى لبي الددك هداينا باهداس لحظو دوسن إلهي ديك إلهين اللي هو أودا وحكسته فرع إيا نسلق بني آدمكو ما صور دافين النبي آدني انتي لوكي ودالي لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو كو أبوري نبي الذيك كو أبوري باهي حوك بدن وجاح في حقا oo sidii maaragtay nabadoonku inoo sheegay keentay damacaas weyn in dad nool la dalbo marka waxa weeye sidaas darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu quraanka noogu soo celceliyay inay galladihiisa iyo nicamkiisa ay ka mid tahay inuu nasiiyay azwaaj min anfusina waliba ilaahay uu si gaar u tilmaamay in ilaahay zawjada ninka zawjo waxa looga dhigay naftiisa bimacna ilaahay meel kale kama abuurin ninka laga abuuray yani aadam oo aabaheen ahaa feerfeerihiisa kamida ayaa zawjadiisa ilaahay ka abuuray oo ummana Hawa ahayd ilaahay geed kale waa ka sameyn karay wax kale waa ka abuuri karay Allah wuxuu doonuu sameeyaa dhagax buu haduu doono dad ka dhigi dad buu haduu doono dhagax u bedeli geed ul ba yuu mas ka dhigay nabi Muuse waa la socotiin mas xaqiiqo waay hada ma aha oo xaqiiqi ah wuxuu doonuu ilaahay ka abuuraa marka ilaahay jalla jalaaluhu zawjada oo ummana Hawa wax kale ilaahay ka abuuri karay laakiin si calaaqadaasi ay u noqoto calaaqa xamiima oo maxabiya kal gacayl iyo mawadda ku dheehan ayuu naftiisi ka abuuray markaasuu ilaahay quraanka waliba nagu galad ahaan noogu sheegay ja'ala lakum min anfusikum azwajan ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا مركا أبونا آدم وأمنا حواء باللوغو هالكا سوءها قد بنتي كدن بيسينا فرعنا سيدا أمبو نغضي لبدا قف كلا أجنبي يعني ميل خلوة قلي كرين يعني سلامي كرين
يعني أجنبي كلا بإله سبحانه وتعالى وحو نو شرعي أو نقول الله ديستي إن لبض قفي سجودوا لقد كرو بكلمات الله تعالى كلمات كإلهنا ليسوا حلالين يو أو أي نقول أقرب الناس إلى الناس حتى أي كسي حل ديران يسو على قضاء أي والدين تودا إلليين أو خواص لماذا إيه خاص لماذا لبض قف كسي دحين يسا أي كبضن يسو عيد كاسته مركا لله الحمد والمنة فضل ياس وفضل الزواج هذه نبي عليه الصلاة والسلام نقول تحريضية خاصة للي يرى سيجار النبي الله ضوحيري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيني إذنك إذا كمل أوده قور أوده هقور سدو هاساسا أخير بدن يعني فرجي سنة ودور سنام بدن عنده سنة ودور سنام بدن كي أنا أود إن فعليه بالصوم وترشيد إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم قل كردني يرى وحدي ليسان إلى الله دين تيسير كل جين إيش كود قرصة إن شاء الله هذا أنا وحنا سوق علي بن عبد الرشيد ابن الشيخ علي الصوفي هناك النذير كيشا أو قدر كيمد ديارتي سهدوا كسو من الإيربور إلى هنا يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وكسو قاعد أنت الميركي دعن الحمد لله على السلامة يا ابني هذه فريست هذا لا نو سعودي كدبا سلامتي النودم بيسا فريست هذا إن شاء الله تعالى وحنقود قلينا الرنتي مهركة ولله الحمد والمنة ما هدنا هكذا أخونا محمد أمين فارح أو قبل بهذا وأنيقا ولاية ويوسو وريجي أنيقا مركا إسلا مركانا نكن قبل قرسنا ينا ويلكي ويهاي ولالكي عبد القادر الشيخ علي صوفي الله نحرسته ولا الذي نكن نوغويناها أو دلي marka labadiiba gabadhiina de ana sidaas waalid ugu noqday oo wilaayadii qaaday wiilkana anaaba waalid u ahaa marka waa minnatu min Allah wa fadl marka waa isu meherinaynaa insha Allah ta'ala Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda قال ربنا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أزوجك يا خالد ابن عبد القادر بن الشيخ علي الصوفي ابن أخي أزوجك موكلتي أو موكلة ولي منى محمد أمين فارح أزوجك بما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بمهر قدره $3000 أمريكي فهل قبلت زواجها ونكاحها؟ قل وحاتلا قبلت زواجها ونكاحها بالمهر المذكور طيب عن صوماليين هذا خالد عبد القادر شيخ علي الصوفي وحا أنكو مهرين يا منى محمد أمين فارح oo aabaheed wilaayadeedii aniga ii wakaashay ayaan ku meherinayaa ma aqbashay meherkeeda iyo zawaajkeedu meherkeeduna uu yahay $3000 waxaad leedahay waan aqbalay meherka iyo zawaajka منى محمد أمين فارح اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين إلهي مسلم نقدقي أيام هداس إسكالي تنكالي قبردي وحواي يويلكي
dad hore isu soo doontay oo is aqbalay waayo aabbana waa bixiyey annagoo ehelkii ah aniga nabadoon cali muumin xareed baan ahay yacni waa bixinay waana idinku mahrinay maharkeedana aqbal waayo waa ogolaanay kolley wax kaloo nooga furan ma laha inaan hambalyeeno maahe sheekha gadaashiisa inaan hadalna ma ahaynin hadalna ma furno marka insha allahu gabadhan walaashay iyo alakh khaalid insha allahu waa idin ducaynaynaa insha allahu ducadii nebigaadii ku ducaynaynaa oo sheekh cabdirashiid hadii ku duceeyey insha allahu reer barakaysan allah hadii ka dhiga insha allahu ilaahay iskuina barakeeyo marka waxa waaye looma soo kala harin maanta waxa ankara kulli insha allah intii timid waxa waaye culimadeena waa nala joogaan sheekh cabdirashiid iyo sheekh xasan waajidi iyo dhammaan dhalinyaradii magaalada way joogaan reer Istanbul reer ankara kulli waxa waa insha allah guri lagu farxa insha allah ilaahay idin ka dhigo insha allah guriga isku raago isku nagaadan allah idin ka dhigo insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan hambaliyo meher uga dirayaa walaalkay Khalid Sheekh Abdulqaadir Sheekh Ali Suufi iyo walaashay Muna Maxamed Amiin Faarax oo maanta meherkeedu magaalada Ankara ee dalka Turkiga ka dhacayo waxaan ugu duceynayaa ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayd barakallahu lakuma wa baraka calaykum wa jamaca baynakuma fil khayr ilaahay waxaan uga baryayaa reerkii nagaada reerkii guuleysta reerkii ubad khayr qaba adduun iyo aakhiraba ka ilaahay uga baryaynaa ku aakhira anfacna ilaahay siiyo iyagana qaar isku waara oo ilaa aakhiro ilaa jannada wada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu weydiinayo waxaan leenahay hambaliyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno inaan ka mid noqono inaan garabkiina taagno maalintii farxadiina الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan waxaan u hambaliyeynayaa caruuskii caruusada Muuna Maxamed iyo Khalid Sheekh Abdulqaadir Sheekh Ali Suufi waxaan u leenahay insha Allah ducadii rasuulka barakallahu lakuma wa baraka calaykum wa jamaca baynakuma bil khayr Allah subhanahu wa ta'ala ha ka yeelo gurigii lagu balaaray lagu barwaaqoobo السلام عليكم halkan maanta waxaan xaflad ambaliyo uga dirayaa walaalkii Khalid Cabdiraxmaan iyo Muuna Maxamed Aamin waxaan leeyahay noqdo qoyskii lagu balaaray lagu nasto barakallahu lakum wa baraka calaykum wa jamaca baynakuma bil khayr السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم همبليو ayaan leeyahay walaalkii Khalid Cabdiraxmaan iyo idmaashidii Muuna Maxamed Aamin ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinka yeelo reerkii barakooba isku waara wad khayr qab kala hela waxaan idinku duceynayaa ducada rasuulka calayhi salaatu wasalaam barakallahu lakuma wa baraka calaykum wa jamaca baynakuma fil khayr wa bil khayr isku waara aad baan idinku faraxsanahay assalaamu calaykum anigoo ah Cabdi Cumar Sheekh bismillaah anigoo magacaygu yahay Cabdiraxiim Maxamed waxaan halkan hambaliyo meher uga dirayaa walaalkay Khalid iyo marwadiisa Muuna waxaan leeyahay qoyskii tarma ilaahay idinka yeelo waxaan ugu ducaynaynaa ducada nabiga بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير أو في الخير قرقي دغمي الله هيدن كيلن لي والسلام عليكم